والله waxaan u arkaa inuu ahaa go'aan sax ah komishinku waxay guteen waajibaadkoodii dastuuriga ahaa ee ay qaranka u hayeen aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa Cabdiraxmaan ahaan go'aanka ay shalay tolo soo saartay ay soo saareen komishinka qaranku waxaan leeyahay waa go'aan loo baahnaa oo waqtigiisii yimi sidii uu sharcigu ahaana la maray waxaan ku hambaleynayaa komishinka tallaabadaas ay qaadeen ee ay hore u qaadeen ma ku hambaleynayaa dhammaan gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland shacabka ku dhaqan waxaan leeyahay walaalayaal balaayo ma jirto dalkan waxaynu u soo marnay halgan dheer oo dhinacyo badan leh hadday tahay halgankii nafurka ahaa ee dalka dib loogu xariinayay ee ururka Aslam uu dalka kaga xoreeyay ciidamadii waxaan ku iri faqashta iyo halgan kale oo dib u dhiskii qarannimada Soomaaliland oo aynu 30kii sano u dambeeyayba aynu ku jirnay walaalayaal waxaan leeyahay nabad ku seexda oo nabad ku soo toosa qof walba kaarkaaga codaynta aad ugu codaynayso saddexda xisbi qaran ee soo bixi doona insha Allah marka imika tartanka doorashada ururadu ay dhacaan kaarkii aad ugu codaynayso soo dhaweyso meel yar oo dhow soo dhigo haddii la beenkii leeyahay marka ay 28 December 2023 ay gaadho maalintaas nin walba xisbigii aad doonayso ee aad jeceshahay soo saaro waxaan ku raadin la beenkii leeyahay nabad ku seexda nabad ku soo toosa balaayo ma jirto shacabka Soomaaliland waxa weeyaan dalkan waxa weeyaan meel cid ay ku bedelanayaan iyo meel ay ku bedelanayaan ma jirto dalkoodu hor u socday maalinba meel baa la gaarayaa waxa weeyaan sanadkii 2011kiina saddexdan xisbiye imika waqtigu ka dhamaaday baynu soo saarnay sanadkan 2023gana saddex xisbiyo kale aynu soo saaraynaa dalkan ururadan waxa ku jira rag 88 xabadood ku jiraan ayaa ururadan ku jira rag waxaan ku iri 500 xabadood ku soo dhaceen baa ku jira oo aan maalin ka bixin dagaalkii aslamta ayaa doonayay inay tartamaan ma fahamtay marka Cabdiraxmaanow halka tanaasku qaadan ku leeyahay